kulanti wanaagsan daawadayaal waa markale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn waraysiga ugu horreeyey madaxweynaha Soomaaliya ee cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu siiyay warbaahinta dibadda iyo weli waxyaalaha uu madaxweynuhu kaga hadlay waxa idinka hayaan warbixin aan ka soo turjunay waraysiga markaasi mid kamid ah idaacadaha dunida uu siiyay madaxweyne Xasan qodobada kale daawadayaal aad ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan booqashada aan la filaynin horena loo sii shaacin madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan isagoo ku tagay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta qodobada kale dawladda ku maqli doontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadana waxaa la garan waayay ee u fadal loo yaqaano oo Mareykanku ku dhawaaqay inay raad gurayaan isla markaana ay baaritaan dheeraad ah ku sameynayaan Mareykankuna cunaqabatayntii ayuu qayb kamid ah ka qaadaya dalka Venezuela kadib markii la isku tusaaleeyay isla markaana dunida ay soo food saartay leelka dhinaca ku saabsan arrimaha loo yaqaano shidaalka iyo tamarta dagaalka gumaadka barakicinta 80 sanadood ka badan ku socotay dadka reer Falastiin ee aan laba calis weydiin iyo dagaalka 80 maalmood kaliya jira ee 42 khabiir ee ka socda maxkamadda dambiyada dagaalka ee loo diray Ukraine waxyaalaha iyo cadaalad darrada dunida ka jirta ay kamid tahay waxaana idinka hayaa warbixin gaar ah isku dhici ugu weynaa oo durba ka dhex bilowday Ruushka iyo Finland iyo wali talabooyinka ay qaadeen labada dal ma dagaal ayaa loo jahaystay wararkii ugu dambeeyay xaaladda iyadoo caasimadda dalka Liibiya ka taagan ee qirta la isku yahay gacanka hadalkana keentay magaalada Tripoli qodobadaas iyo kuwa kale ku qaldontaan wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waa 18 bishii shanaad 2022 waa markale iyo wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan dunida gaanka dabcan weeyaan dooshan qiimaha leh shirkadda Amal Group iyo adeegyada loo bogay xawaalad internet xawaaran leh iyo kaydinta dhaqaalaha ee bangiga waa adeegyo waaweyn oo dhan kasta ka haqabtiray baahida bulshada Soomaaliyeed ee geeyiga iyo waliba caalamka ka faa'iideyso adeegyada Amal Group aan ku bilaabo markaana aan ugu horeysiiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ee cusub mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waraysigii ugu horeeyay waxa uu siiyay warbaahinta dalka Turkiga laga leeyahay ee dawladdu ay leedahay Anadolu Agency ama Anadolu madaxweynaha la doortay ee Soomaaliya ayaa waraysi gaar ah uu siiyay waxa uu kaga hadlay wakaaladaasi arrimo waaweyn oo ay kamid tahay arrimaha u qorshaysan inuu qabto arrimaha ka horeeya ama ku keenaya markaasi loolanka sidoo kale iyo waxyaalaha dawladdiisa ay diiradda saari doonto iyo waxa uu ugu yeeray dib u heshiisiinta dhinaca siyaasadda iyo arrimo waaweyn oo madaxweynuhu ku sifeeyay inay noqdaan kuwa ugu muhiimsan madaxweynaha ayaa markii ugu horeysa wuxuu ka hadlay markaana uga tusaaleeyay sida ay dadka Soomaalidu u arkaan Turkiga wuxuu ku tilmaamay inay dadka Soomaalidu ay Turkidu ay yihiin kuwa wadnaha uga yaala isla markaana wax la taaban karo ay u qabteen waxa uu yiri waxay noo qabteen wax la taaban karo marka ay timaado ayuu yiri dadka iyo dawladda Turkigu waxa ay ku leeyihiin saameyn aad u xoogan Soomaalida waayo waxay taageeradooduna waa mid maskaxda iyo wadnaha iyo qalbiga waana ku hayno taasoo la arki karo oo la taaban karo ayuu waxay badbaadiyeen isla markaana ay wax tareen ayuu Soomaali badan ama dad badan oo Soomaaliyeed ayuu madaxweyne Maxamuud isagoo hadalkiisa wata ayuu madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray in ay taageero xadle ee dawladda Turkiga ay ka geysatay dhinacyo fara badan tusaale ahaan wuxuu marka laga soo bilaabo iskuulka hoose ilaa iyo jaamacadaha ayay wax tar ka geysteen sidoo kalena waxa uu madaxweynuhu sheegay inay taageero dhinaca tababarka oo heer sare ah ay siiyaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada ammaanka ayuu dalkanada waxay sidoo kale tababar ku siiyaan kaliya maaha inay wadankooda u qaadaan xataa magaalada Muqdisho gudaheeda ama dalka gudihiisa ay tababar uga geystaan wuxuu xarun tababar ay xitaa halkan ku leeyihiin Soomaaliya taasoo ah mid qalabayn taageero iyo sidoo kale wax barasho isugu jirta ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhanka kale madaxweynuhu wuxuu sheegay inay tahay dhammaan arrintaas arrin ku weyn Soomaalida isla markaana Soomaalidu ay arkaan wuxuu sheegay in dawladdiisu waxyaalaha ugu weyn ay doorka koobaad siinayso ay noqon doonto amniga wuxuu yiri sad ogtahay waxa jira ayuu loolan dhinaca amniga oo Soomaaliya mar walba ay wajahayso kaas wuxuu noqon doonaa inaan dagaalkayga u jeeyo ayuu shabaab isla markaana ka hortago ayuu kooxaha argixisada ah oo uu sheegay inay noqon doonaan kuwo laga buriyo dalka soo hadalka u dhigay madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray inay noqon doonaan arrimahaasi ku ugu waaweyn uu doonayo in uu rajada ku soo celiyo dhinaca ammaanka iyo kala damaynta dalka oo sheegay in Soomaaliya ay mar walba ay wajahayso dhanka kale madaxweynaha waxa uu ka hadlay arrimo dhowr madaxweynaha 60 jirka ee Soomaaliya wuxuu hoos ka xariiqay in waxa ay Soomaaliya u baahan tahay ay tahay wuxuu ugu yeeray in siyaasadda laga heshiiyo isagoo sheegay in bulshada Soomaaliyeed aysan u baahnayn dib u heshiisiin maaha yuri bulsho heshiisiin ee waa siyaasiyiin heshiisiin
waxaana geli doonaa dib u soo kabasho iyo dib u soo naaxid si aan uga wada hadallo ayuu waxyaalaha mustaqbalka aan wadaagno tusaale ahaan wuxuu yidhi dadkii laga guuleystay iyo kuwii guuleystay waxay u baahan yihiin inay isku yimaadaan oo wada fadhiistaan kadibna ay ka wada hadlaan mustaqbalka ay wadaagaan ayuu yidhi madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu dhageysan doono dadka oo dhan dhinacyada iyo weliba bulshada kala duwan isla markaana uu bixi doono wuxuu ugu yeedhay firaaq ama gogol siyaasadeed taasoo ka dhigan ayuu yidhi in la isku soo dhaweedo maadaama buu yidhi gogasha siyaasaddu baryihii ugu dambeeyay oo dhan ay laabneed oo xidhneed oo dad kooban kaliya ay ku koobneed waa sidoo madaxweynuhu hadalka u toosiyay dhanka kale madaxweynaha waxa uu sheegay in uu ka shaqeyn doono wuxuu ugu yeedhay siyaasad xasiloon iyo weliba in la gaadho dhamaystir ayuu yidhi arrimaha dastuurka ayuu sheegay in noqon doono kala dhamaystiro sidoo kalena in la dhamaystiri doono shuruucda ayuu yidhi dhinaca doorashooyinka xisbiyada iyo system ayuu yidhi ama qaab wuxuu yidhi dowladda hoose loo daadajiya dalka kuwaasoo noqon doona ayuu yidhi kuwa ugu waaweyn oo wax ka qaban karo madaxweynaha hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu in yaro hadalka ka kaaftoomay sida uu u habeed doono ciidamada iyo weliba waxyaalaha ku aadan ciidanka Amazon oo uu si kooban uga hadlay wuxuu yidhi markay noqoto Amazon ayuu yidhi ciidamada midowga Afrika waxa ay nageliyeen ayuu yidhi dhiig iyo dhaqaale waxayna ahaayeen ayuu yidhi kuwa tallaabooyinkoodu aad u muuqda wuxuuna sheegay in ay ahayd in mar hore wax laga qabta arrintooda laakiin ay socod doonto arrintaasi laakiinse madaxweynaha ayaan sheegin in qorshaha kala guurka ah ee wadanka laga saarayo Amazon uu sidiisa u socod doono in kale si kooban ayuuna arrintaasi uga kaaftoomay laakiin wuxuu ku gaabsaday inay ahayd shaqadaas in mar hore la qabto dhanka kale madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay uu si weyn uga shaqeyn doono inuu cilaaqaadka uu hagaajiyo iyo weliba marka ay noqoto dalka Turkiga iyo dalalka kale oo dhan Turkiga iyo Soomaaliya ayaa cilaaqaad aad u wanaagsan leh isla markaana madaxweynaha ayaa qaybtii ugu horeysay waraysiga la soo daabacay intaasi aan idinka soo koobay ma idinka soo min guriyada washra qiimaha leh warbaahinta dalka Turkiga Anadolu Agency waraysiga ay qaaday tabelka warka wacala dhinaca mas'ada caalamka kale annaga kale eega diyaaradda loo yaqaan diyaaradda ugu weyn dunida ama diyaaradda leh diyaaradaha ugu badan ee dunida loo yaqaan Cap Holdings ayaa waxa ay sheegtay in khasaarihii ugu weynaa ee diyaarad gaari karaya ama shirkad diyaarad gaari karaya oo ku dhacay kadib markii 113 diyaaradood ay ka qoofalatay dowladda dalkaasi Russia oo iyadu u qabsatay si xayiraad oo diyaaradahan waa nooca diyaaradaha la kireysto loo yaqaan ama diyaaradaha la kireysto ayaa waxay sheegeen in dayn qaara ku lahayd dowladda dalkaasi Russia ay go'aansatay inay xayirto ilaa 113 diyaaradood iyagoo sheegay in sidoo kale ay qalab kale oo ballaaran oo diyaaradahaas ay lahaayeen la xayirtay taasoo ka dhigan ay yiraahdeen in 2.7 bilyan oo dollar oo lacag ay dhumiyaan madaxa guud ee shirkadaasi ayaa sheegay in ayagoo heli jiray 3 bilood 500 milyan oo dollar oo faa'iido bedelkii hadeerto ay dhumiyeen ayuu yidhi 6 jibaar lacagta ay heli jireen faa'iido ay jirtay wuxuuna dowladda dalkaasi Russia ku eedeeyay in ay sameysay wuxuu ugu yeeray la tashilaan waxay degan tahay Dublin Ireland shirkadan waxaana sheegtay in ay u muuqato in diyaaradahoodu ay fadhiyaan inkastoo ay leeyihiin diyaarado ilaa iyo 1624 diyaaradooda taasoo ah shirkadda kaliya diyaaradaha ugu badan haysata haddana diyaaradan ayaa waxa ay la sheegay in ay lacag ay ku lahayd dowladda dalkaasi Russia ruushka ayaa wuxuu go'aansaday markii cunaqabataynta tirbeelka dalalka ay saareen kala duwan inay iyaguna xayiraan inta badan diyaaradaha u kala gooshaya dunida gaar ahaan kuwa lacagta ku lahaayeen si san lacagta ogala fakan taasoo markaasi ay keentay iyaduna walaaceeda iyo waayaheeda gaarka iyada oo cimilada dunidu ay aad u sii kululaanayso markaana waxa loo yaqaan isbedelka cimiladu ay xuntahay 10ka dal ee dunida ugu kulul la soo saaray liiskooda iyada oo ururka arrimaha saadaasha hawada ka shaqeeya uu sheegay in saameyn xoogan ay sii lahaa doonto cimilada isbedelaysa iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya iyagoo sheegay in qaar kamid ah dalalka ay gaadheen 100 digrii nooca marka loo yaqaan halbeega Fahrenheit waxayna sheegeen inay taasi ka dhigan tahay iyadoo laga leexday iyada dhammaan heshiisyadii iyo qawaaniintii ku aadaneed heshiiskii loo yaqaanay Paris ee cimilada isbedelaysa in la xakameeyo ururkan Mareykanka degan ayaa waxay sheegeen in cimilada adduunka si kulaantay walaac xoogan leedahay waxayna soo saareen liiska dalal dhowra iyagoo sidoo kale sheegay in dalalka cimiladoodu ay si kulaanaysa yihiin kuwa nugul si kastaba noqotee dalalka cimiladaas ayaa warbaahinaha kale ee tabiyay waxaa kamid ah warbaahinta BBC da qaybta ku hadasha afka Hawsaha kuwaasoo sheegay in cimilada dalalka ugu darnaa ay hayeen sanadahan dalalka Mali, Burkina Faso, dalka Senegal, Tuvalu iyo dalalka Djibouti, Mauritania, dalka Bahrain, Palau
qatar iyo dalka Gambia oo dhamaantood sheegay inay yihiin 10 dal ee cimiladu ay sii xumaanayso dunida ayaa waxay walaac xoogan ay ka qabtay waayihii ugu dambeeyay oo dhan cimilada sii kulaanaysa iyadoo la sheegay dalalka qaarkood ay ku sii socdaan gaagoontarka iyo goynta dhirta Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxaa la sheegay in goynta dhirtu ay caadi ka noqotay taasoo la sheegay in shaqada laga qabtay aad u yartahay qaybta labaad wararka waxaa la dhinaca